بسم الله الرحمن الرحيم ورuntii waa uga mahadcelinayaa wasiir daahir yani siduu u furtiray arrinta ku wajahan maanta hadalkeena ee ah heshiiskii aan la galnay dowladda 25 August 2025 ee ahaa saddexda qodob oo ka tirsanaa cutubka afraad ee annaga aan u arkaynay parliamentary systemkii guuritaankeedii khatar waxay u keeni kartaa dalka in la duro يعني الشرعية ده سياسات الوسط دورنا يبدحوين أمر الزارع وكرسي قويني أما حزبية الله حريو يعني مدو حد بدن سد حزب كريه وعمارن أرباسنا خطرها هاين كنتي أنا ومدش مقاس وذا جدا أيام دودا أصلقلني حكومة ده الدولة ده وأذو شن فردي شن أنقلني كبدن waxaan markii dambe ku heshiinay in qodob badan saas yani aan isku waafaqnay annaga oo markaas afar ahayn ayaa qodobadaas aakhirkii dowladda la siixanay waana waxaan isleeyahay runtii waxay u ahayd dig dowladnimada soomaaliyeed inaysan gelin shaki iyo wareer yani habka madaxweynaha loo dooranayo habka uu saanada ku weynayo wasaaraha ama xisbiyada sida habka ay ku soo galayaan iyo sharciyadooda marka saddexdaas qodob waa jecleen runtii annaga in maadaama heshiiskan uu ahaa 25 August waa jecleen hadda ku huru in la keeno baarlamaanka oo yani waqti hore la keeno laakiin maanta qadarka alla ka dhigay ayadan maaragtay waxaan rabnaa dowladda inaan u mahadcelino runtii inay yani wixii lagu heshiiyey ku dhaqantay oo ay keentay dad badan baa waagii shaki geliyay maadaama ay daahday heshiiskaas in la waafajiyo cutubka afraad dad baa shaki geliyey inaanan marna aysan maaragtay waxba laga soo qaadin laakiin maadaama akhriskii maanta ugu horreysay ay ahayd saddexdaas qodob ee cutubka afraad ka tirsanaa waa bogaadinaynaa runtii dowladda iyo guddiyadii ka soo shaqeeyey waafajiyey heshiiskii 25 August maanta waxa dhiman waxa weeye waa arrimaha doorashooyinka iyo hadda shirarkan nagu soo wajahan ee madasha mustaqbalka iyo dowladda yeelanayaan ayadana waxaan rajaynaynaa runtii in is-afgarad uu ka soo baxo dalka sideeda waqti iska xasaasi aan maraynaa oo hadda gabagabo iska tahay waxaan rajaynaynaa in si miyir qaba iyo wada hadal iyo isku furnaan lagu wajaho inta hadsan